hooyadiisa ii balan qaaday inay isiinayso haddana waxaa u guursaday inta harsan in alaabteeda ku korsado qofka ay sinta ku sido gabadhan aroosada ah ma ahan wiil ay iyadoo dhashay nin kale ma warabo ba asaar waa cunugan mar walba in alaabta gashtaan jeclahay ma qaadan karo aqligaaga sheekadan balse haddii aad si degan u dhameysato wax kasta ayaad ogaan doontaa arooskii ugu yaabka badnaa ee ebid dadka Soomaaliyeed ay maqlaan isla markaana 5 jir iyo 20 jir ay isku guursadaan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho isma lahayn sheeka noocan oo kala ah ayaa soo tabin doontaa balse muuqaalkan oo dhameystiran ayaan goordhow ku soo gudbin doonaa intaanan kula wadaagin waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalkan like saarto sidina share gareyso qaybta hoose ee comment aad ku soo qorto aragtidaada iyo waxay kula tahay sidoo kale page-kayga Cumar Buule aad follow dhahdo xarunta Quraan saarka iyo isku daweynta dhirta ee Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayaa si online u Quraan saari doona dadka la xanuunsanaya xanuunada ruuxiga ah sida isha sixirka jinka xasadka caado wareerka dhalmo la'aanta shaqada oo culeys laga saaro awlaada oo caasi kugu noqda walwalka iyo walbahaarka cabsida joogtada ah iyo wixii la mid ah haddii aad u baahan tahay in qaybaha si online lagu Quraan saaro la xiriir nambarka shaashada kaaga muuqda halkan waa Farxiyo Beauty Salon oo kamid ah goobaha dumarka lagu qurxiyo ee ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir arin qof kasta ka yaabisa ayaa halkan ka dhacay kadib markii gabadhan aroosada ah ay halkan keensatay canugan yar ee idin muuqanayo oo ay ku sheegtay inuu yahay ninka iyada guursanaya qof kasta ayaa aamin waayay arinta gabadhan Soomaaliyeed ee aroosada ah ay soo bandhigtay ma ahayn wax la filayay arintan mana ahayn wax uu qof kasta aamini karo qaar ka mid ah saaxiibadan ayaa nala soo wadaagay dhacdada yaabka badan durba waxaan gaarnay goobta ay arintan ka dhacday balse goobta ayaan ku soo aragnay gabadhii aroosada oo xambaarsan canugan yar oo ay ku sheegtay inuu yahay ninkii iyada guursaday waxa ay tilmaamtay in canugan yaraantiisii loo balan qaaday isla markaana ay iyadu jecleysatay in ay korsato haddaba sidee ay dadku ku aamini karaan sheekadan iyada ayaa inooga sheekeynaysa wax kasta sida ay u dhaceen cunugan markii hooyadiisa dhalaysaa joogay aniga goobjooga ahay markaasaa jeclaaday waa ka helay waxaa dhahay wiilkan wallaahi waan jeclaa waana ka helay markii intaan xataa yaalayaa nafta ku soo suwaa hooyadiisa ii balan qaaday inay isiinayso haddana waxaa u guursaday inta harsan in alaabteeda ku korsado cunuga hadda 6 jir waaye ma alaabteeda ku korsanaya inkastoo yaraantiisa aan jeclaay haddana markii la dhalay aad taagnaay haddana inta dhiman anaa korsanayo cunugan waa jeclahay nin kale ma warabo ba asaar waa cunugan maadaama yaraantiisa ka warhaay markaa la dhalay joogay oo haddana ani lee balan qaaday ee waalidiintiisana raali ay ka tahay anina waa jeclaa wiilkan mar walba in alaabta gashtaan jeclahay ugu dambeyn dadka waxaa leeyahay mashquulka dhaafa cunugan alaabteeda ku korsanaya ani waan filayaa in sheekadan ay ka yaabisay isla markaana ilaa iyo hadda aad aamin la adahay sida ay u dhacday balse adiga hadda muuqaalkan daawanaya maxay kula tahay sheekadan nagula wadaag qaybta hoose commentiga muuqaalkana like saar siina share garee gaarsii saaxiibada sidoo kale page-kayga Cumar Buule follow saaro inta muuqaalkan kiis ay ku kulmi doono waa saaxiibkiin Cumar Buule ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo